مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه، ففيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كينا أن أوجهد ليني قصدنا وموسى عليه الصلاة والسلام. ما أنتو حنك شاكينينا وحيتا هاي قبر آد أقيم بضن قرآنك آد أماني وحاسكي فرعون أولو مقعاو آسيا waxay ku nooleed waxay tahay gurigii Fircawn waxa qabay waxay tahay Fircawn oo dhahaya aniga ilaahay ayaan ahay ayaaba qabayba. آسيا sida ogtihiinba xaaska Fircawn waxay ahayd gabadhii ka dambeysay inuu badbaado Nabi Muuse alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muuse markay aragtay waxay dhahday waxay tahay waxa laga yaabaa waxay tahay inuu noo noqdo cunug inuu noo noqdo ama in qaboobsigeen inuu noqdo laga yaabaa ayada sabab u ahayd inuu badbaado. kadib iyadii ayaaba aamintayba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ku dhahday waxay tahay adiga Ilaahay ma tihid. kadib wuxuu isku dayay waxay tahay inuu cadaabo aad iyo aad buu cadaabay. kadib wuxuu raba waxay tahay inuu dilo. kadib إلهي سبحانه وتعالى أيا وحنوغو شيغيا وحي تاهي سورة التحريم آية كوبي تبانات. إلهي سبحانه وتعالى أولي هي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وحيته وضرب الله مثلا. إلهي سبحانه وتعالى وحتصال وقلق وحيته مؤمنين تؤدن مسلمين تؤدن تصال أي وقلق قبل قيمها بضن وتصال قبل والبيدامنا سوحانيه وحيته تصال كدقو قبل آسيا لغو مقعاو. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيقول شيء بقرآن كالصول أقنى إلا قيام الساعة. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه كذب للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت حل أي لهيسي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فرعون حوربا إنو إدلو إله يو أكتاد وحيال أيان كالدورتي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة أكتاد قري إيقدس جنة قري إيقدس إله يو ونجني من فرعون. فرعون إيقبت بادي iyo dhulmigiisa iyo fasahaadkiisa iyo dhibkan uu ila raba Ilaahayow iga badbaadid. Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalay ducada. guri ayuu jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhisay. marka walaalayaal xilliyada inaad geerida aad ka dooratid gaalnimada ma ahan shay fudud. laakiin gabadha way ku dhiiratay inay nafsada ay ka baxdo ay ka dooratay in intay dhihi lahayd adiga ayaa rabbigayna adiga ayaan ku caabudayna. gabadha waa tusaale aan ka dhigano tusaale. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وحوليه هي نبي صلى الله عليه وسلم أيا دولك وحوك حقيقي أفر علامة كدب أيا وحودها وحيتها متقان أفرتن وحنقولها نمي كدب أيا وحودها جنة وحا وفضل بدن أفضل نساء الجنة نددك جنة جلدون ضمك وحا وفضل بدن أفر وحودها وحيتها ومريم ابنة عمران نبي عيسى عليه الصلاة والسلام هو يديس إيو خديجة رضي الله عنها إيو فاطمة بنت محمد نبي عصام قبليس إيو آسية امرأة فرعون قبل أن كشيكيني مانت فرعون حاس كيسا waxay ku dhimatay waxay tahay ayadoo rumaysan
موسى عليه الصلاة والسلام إلهنا سبحانه وتعالى وحو أدورتي وحيتهي ما دام كسبرتي لبك دباطة فرعون ظلم جيسا إني كمن نقطة ضمك أو فضلك بدن جنada kaliya ma ahane bal waxay ka mid tahay nabi sallallahu uu dhahay waxay tahay dad baa waxa raga dhaafay oo dhameystiran dumarkana waxa jirta dumar dhameystiran oo dhaafay dumarka waxa ka mid ah Aasiya ayaa ka mid ah sababtoo ah waxay garatay waxay ta aqligeeda iyo wanaageeda inay nabi Muuse alayhi salaatu wassalaam ay rumayso ay raacdo way ogeed xaqiiqada iyo wanaaga ay ku aragtay nabi Muuse asigoo yar ayaa wuxuu ahaa qof xikmad badan aqli badan oo cilmiga raadinaya awood badan isla markuu risaalada iyo dacwada uu u soo bandhigayna way rumaysay way ogeed fircoon beentiisa iyo dulmigiisa iyo dhibaatadiisa xaq daradana ma jecleen ayada gabadha mu'minada ah wata awgeed ay ka mid noqotay dadka ka mid ah ahlul janna maxaa ka wanaagsan bishaaradaas bal waxaa bishaara ugu filan waxay ta ilaahay uu leeyahay wadaraba allahu mathalan lilladina aamanuu imra'ata fircawn aniga iyo adiga rag iyo dumar aabo iyo hooyo ayeeyo iyo awoway adiga iyo aniga dhammaanteena ilaahay wuxuu leeyahay waxaa tusaale inoo ah waa waxay tahay imra'ata fircawn gabar baa tusaale noo ah gabadha baa tusaale noo ah aan ku dayano maxaan uga dayanaynaa waxay tahay xaqa inaysan marna ka leexanin waxaan uga dayanaynaa waxay tahay xaqa inay cadeysay xitaa sultaan jaa'ira maamule oo maxal dhihi jiray wada khaldan qaaday oo dadka dulminaya bal dadka garaacaya dadka aan u ogoleen wax wanaaga naftiisa oo kaliya u ogol taa bay diiday taa awgeeda bay jannada ku gashay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka raali noqdo annagana kuwii wadada wanaagsan iyo xaqa iyo khayrka raaca ilaahay subxaanahu wa tacaala naga mid dhigo gabadhaasi aan ku dayano aan barno siiradeeda iyo taariikhdeeda gabdhaheena iyo wiilasheena ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada hanu kulmiyo dhammaanteena allahumma aamiin حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله